Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ramadaan mubaarak dhammaan asxaabta halkan aan ku wada xiriirno. Waxaan markale idin leeyahay Ramadaan mubaarak. Waxaan idin rajeynayaa in bishaan barakeysan ee Ramadaan khayrka iyo mataqaanaa wanaagga ay leedahay dhammaantiin aan si wada jir ah uga faa'iideysan doono. Marka maanta waxaan leenahay cashar ku saabsan Ramadaanka. Marka casharkiina maanta wuxuu ku bilaabanayaa sida tan. Fasting is one of the 5 pillars of Islam. Fasting soonka is one of the 5 pillars of Islam. Waa mid ka mid ah shanta tiir ee Islaamka. Fasting is one of the 5 pillars of Islam. Soonka waa mid ka mid ah shanta tiir ee Islaamka. Yacni shanta tiir ee Islaamku leeyahay mid ka mid ah ayaa ah soonka. Yacni soonka lagu waajib yeelay in la soomo. Fasting is one of the 5 pillars of Islam. Soonka waa mid ka mid ah one of the 5 waaye mid ka mid ah shanta tiir ee Islaamka. Pillars waxaa waaye of Islam waa tiirarka Islaamku leeyahay. Fasting is one of the 5 pillars of Islam. Islaamku yani soonku waa tiir ka mid ah shanta tiir ee Islaamka. Ramadan is the holy month of fasting. Ramadan is the holy month of fasting. Yani Ramadaanka waxaa waaye ama yani bishaan oo Ramadaanka hadda lagu jiro waxaa waaye holy month, yani bil barakeysan ee aan soo noomina bil barakeysan oo la soomayo waaye bil barakeysan oo aan soomeyno. Ramadan is the holy yani baraka waaye is the holy month of fasting. Bil baraka leh oo aan soomeyno waaye. Ramadan is the holy month of fasting. During Ramadan, Muslims fast every day. During Ramadan, Muslims fast every day. Inta lagu guda jiro Ramadan, Muslimiinta waa ay soomayaan maalin kasta. During Ramadan, Muslims fast every day. Inta lagu guda jiro Ramadan, bisha Ramadan inta lagu guda jiro, Muslimiinta way soomayaan maalin kasta. During Ramadan, Muslims fast every day. Islam is a religion of peace. Islam is a religion of peace. Islaamku waa diin nabadeed. Islam is a religion of peace. Islaamku waa diin nabadeed. Yani diin nabadeed oo dadka aan lagu dhibeynin waaye. Islam is a religion of peace. Islaamku waa diin nabadeed. Okay. Ramadan is a sacred month. Yani sacred waxaa waaye bil xurmo leh oo dadka yani ilaahayga ay ku xirnaanayaan aad ay ugu dhawaanayaan waa micna. Ramadan bishaan Ramadaanta ah waa bil sacred month ah micna. Bil waxaa waaye dadka ilaahayga ay aad ugu dhawaanayaan oo xurmad leh waaye. Ramadan is a sacred month. Waa bil xurmad leh. We fast from dawn to sunset. We fast yani waxaan soomeynaa waa berigii ilaa iyo qorax dhaca. Waa berigi yani subax markuu waaga beriyo ilaa iyo qorax dhaca waan soomeynaa. We fast waan soomeynaa from laga soo bilaabo down to sunset. Yani qoraxda markii yani waa berigi hore ilaa iyo qoraxda ay ka dhacayso. We fast from dawn to sunset.
Okay. We don't eat or drink during the daylight. We don't eat or drink during the daylight. waxba ma cunayno. We don't eat. Ma cunayno. Or ama drink ma cabayno. Yani cabitaan ma cabayno, cuntana ma cunayno waaye. During inta lagu guda jiro the daylight. Yani iftiinka maalinka intuu jiro, yani qoraxda intay jirto waaye. Wax ma cunayno, waxna ma cabayno. We don't eat or drink during the daylight. Inta iftiinka uu jiro, waxna ma cunayno, waxna ma cabayno. Okay. There's no sexual relation during the fast. There's no sexual relation during the fast. Yani soonka inta lagu guda jiro, ama yani inta la sooman yahay waaye, oo qofku sooman yahay waa macnaa bisha inta lagu guda jiro maahan, laakiin inta la sooman yahay qofku sooman yahay oo yani from oo dadka soo bilaabanaysa mataqaanaa qoraxda from down to sunset kasoo bilaabanaysa. Yani there's no ma jiro macnaa sexual relation, ma dhici kara waa macnaa. There's no sexual relation, ma dhici karo inta lagu guda jiro soonka, ama inta yani la soomaya saacadaha la soomaya. When the sun goes down we have breakfast. Qoraxda markay dhacdo afur, yani waa afurayna waa macnaa. We have breakfast. Breakfast afurid waa macnaa, oo yani soonka jibinaynaa waaye. Breakfast waa laba erey saaran waaye, break iyo fast. Soonka in la jibiyo waaye. When the sun goes down we have breakfast. Yani waan quraacanaynaa, macquul maaha, quraac maaha. Laakiin ereyga marka horta quraacda wuxuu ka imaaday, yani maadaama qofku habeenka dhan oo iska gaajoosan yahay, yani 8 saacadood ka badan qofkii waaba saasoo kusoo naaybo, si kale hadii loo dhaha mugta. Marka ereyga marka horeta quraacda meeshaas ayuu ka imaaday. We go to the mosque to pray. We go to the mosque to pray. Masaajidka ayaan aadaynaa oo aan kusoo tukanaynaa. Masaajidka ayaan aadaynaa oo aan kusoo tukanaynaa. We go to the mosque to pray. Masaajidka ayaan aadaynaa si aan ugu soo tukanno. We go to the mosque to pray. We pray 5 prayers a day. Waxaan tukanaynaa. We pray. Waxaan tukanaynaa 5 prayers a day. Maalintii 5 salaadood ayaan tukanaynaa. 5 salaadood ayaan tukanaynaa. Yani 5 salaadood oo waajib ah waa 5 salaadood oo aan tukanna haddaba. We pray 5 prayers a day. 5 salaadood ayaan tukanaynaa. We pray waxaan tukanaynaa 5 prayers a day. 5 salaadood ayaan tukanaynaa. A day yani 24 hours laga wadaa. We pray 5 prayers a day. Okay. We visit our families. We visit waxaanu booqanaynaa our families. Yani qoysaskiina. Family waa qoys. Qaraabada. Qaraabo salaan ayaan aadaynaa waa macnaa. Qaraabo salaan. We visit waxaanu booqanaynaa our families. Ehelkeena iyo qaraabadeena ayaan booqanaynaa. Yani maadaama ay tahay bil barakeysan oo yani waxaa waaye wax kasta oo sameyso wanaag ah, yani lagu labalaabayo. We visit our families. Okay. We thank Allah. Allah ayaan u mahadcelinaynaa yani. We thank Allah. Allah ayaan u mahadcelinaynaa. We thank Allah. Allah ayaan u mahadcelinaynaa. Mahadceliska lama loo baahnaba. Yani xitaa in bishaan barakeysan ay Ramadan aad soo gaartay ayaa waxay tahayba wax aan la heli karin. We thank Allah. Allah ayaan u mahadcelinaynaa.
okay waa mahadsantihiin cashirkii maanta halkaas ayuu ku egyahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.